laga hadlaa maanta waxaa iskale shaqalka ayaa iskale ila isla ayadii ku guda jirnaa oo dabcan waxaan u leenahay gabagabadii aan maraynaa ga loo geeyaa tusaale waxa u soo qaadanay group waxaa la dhahaa wishka loo isticmaalo dhismaha guryaha wishka dheer oo aad aragtaan birta la isku xirxiro oo guryaha dabaqyada fooqyada marka la dhisayo la sameeyo ayaa luqadda Talyaaniga loo yaqaanaa group g loo geeyay ha oo uu ka dambeeyo xaraf shibana sidee loogu dhawaaqayaa waxay noqonaysaa g oo ta ghiaccio waxay tahay waa baraf ghiaccio marka muhiimaddu waxay tahay anaga waxaan danaynaynaa saddexdaas xaraf oo israacay ayaan dareynaa qaabka loogu dhawaaqayo isla jiidayaan ku jirnaa marka jiidan waa qaybta macnaha sono duro waa ay qayb ka tahay waa bahdaas qayb ka tahay g loo geeyay aka uu ka dambeeyo xaraf shaqal ah oo ah si loogu dhawaaqayo spaghetti waa intaas spaghetti marka spaghetti maxaa la dhahaa anaga haddaan luqadda Soomaaliga markaan ka hadlayno spaghetti basta una kana pasto waa pasto no macna way kala duwan tahay marka la joogo luqadda Talyaaniga marka spaghetti waxa loo isticmaalo yiraahdaa pasta dheer mid aan u naqaano sidaan filayo waxaan u maleynayaa inaad ka bogateen casharkeena maanta marka inta aan ku kulmi doono casharkan mid lamid ah toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo noolu kulantee hasaatee waxaan mar walba naga xasuusinaa inaadna naga ilaawin like-ta share-ka isla mar ahaantaasna aad u gudbisaan asxaabtiina inta kale waa mahadsantihiin